wax ka baro awoodaha cajiibka ah ee Allah suu ku manaystay xayawaanka qaar. Noolaha waxa uu Alle suut ku kala duway maskaxda oo uu si gaar ah aadamaha uga fadilay noolaha kale oo dhan. Inkasta oo aanu xayawaanku garaad lahayn, haddana waxa uu Alle siiyey awoodo badan ka kaba nusqaantaas, qaar badan oo ka mid ahna aanu aadamuhu lahayn. Awoodahaas xikmadaha rabbaaniga ah ee ku jira waa in xayawaankani uu yeesho awood uu kula qabsan karo deegaanka iyo hadba duruufaha uu la nool yahay. Qormadan oo aynu u soo rugnay af Soomaali, waxa aynu ku eegaynaa qaar ka mid ah awoodahaas xayawaanka uu Alle ku xoojiyey. Biciidka. Sida ay xaqiijiyeen khubarada baadhaha dabeecadaha iyo nolosha xayawaanku, xayawaanka biciidka la yidhaahdaa xilliga jiilaalkii waxa uu wax ka beddelaa midabka dabiiciga ah ee maqaarkiisa sare, waxa aanu ku badiyaa caddaanka, taas oo ay khubaradu ku macneeyeen in midabkaasi uu iska caabiyo faladhaha qorraxda, taanina ay tahay hab abuur ah oo Alle ugu talagalay in xayawaankani xilliga xagaagii kulaylka badan ee qorraxda kaga raysto. Sidoo kale biciidku xilliga jiilaalkii midabkiisa waxa uu u beddelaa midabka dambaska uu ku dhex qasan yahay midab bunni ahi, taas oo iyaduna ah hab kale oo ugu adkaysan karo qabowga xilligaas. Tukaha. Tukuhu waxa uu leeyahay awood rabbaani ah oo uu ku xasuusan karo wejiga qofka khatarta geliya noloshiisa. Tukuhu waxa uu ka mid yahay xayawaanada ay khubaradu isku waafaqsan yihiin garaad badnaantiisa, gaar ahaan marka la eego dhinaca howlqabadkiisa, ilaalinta ammaankiisa iyo guud ahaanba maamulidda hab nololeedkiisa oo dhan. Waxa ay khubaradu tilmaameen in tukuhu awoodo in uu qabto howlo maskax badan u baahan, aanu daanyeerka oo qudhiisa garaad badnaan lagu tilmaamaa qaban karin. Balanbaalista. Balanbaalista oo sida aynu la soconno ka mid ah xayawaanada kuwa taagta daran ayaa leh awood abuur ah oo ay nolosheeda ku ilaaliso. Waxa ay awood u leedahay in ay dhadhamiso shay kasta iyada oo aan cunin jidhkeedana aanu gelin. Jeer. Jeerta oo ah xayawaan beribiyood aad u xoog badani, waxa ay leedahay awood rabbaani ah oo jidhkeedu uu ku soo daayo dareere shaqadiisu tahay in uu qaboojiyo, ka ilaaliyo qalaylka, qoyaan u sameeyo, liddi ku ah cudursidayaasha iyo fayrasyada kala duwan islamarkaana qorraxda ka ilaaliya. Hombarada dolphin. Xayawaanka hombarada ee bad ku nooshahi waxa uu awood abuur ah u leeyahay in marka uu seexanayo, maskaxdiisu qayb ahaan uun seexato, halka qaybta kalena ay soo jeedo, sidoo kale labadiisa indhood midkood waa uu xidhaa, isha kalena kala badh ahaan ay furantay. Arrintaas oo ay khubaradu ku tilmaameen in ay tahay hab uu xayawaankani kula socdo waxa hareerihiisa ka socda iyo haddii uu cadow ku soo fool leeyahay. Sidoo kale hombaradu waxa ay awood abuur ah u leedahay in marka ay khatari jirto ay isu diraan ishaarooyin ah fariimo la isfarayo in biyaha ay dibadda uga soo baxaan oo ay hawada qaataan si ay isaga ilaaliyaan qaraqa. Qudhaanjada. Oo ah xayawaan aad u taag daran balse leh awoodo ay ugu muhiimsan tahay in ay leedahay hab maamul dowladnimo u eeg oo kala dambayn iyo amar kala qaadasho ku jirto, islamarkaana leh hab nololeed isu dheeli tiran oo ay u qaybsan tahay maamul, shaqaale iyo raciyad. Qudhaanjadu caadi ahaan ma seexato sida in badan noolaha ka mid ahi habeenkii seexdo. Khubarada xayawaanka u kuurgalaa waxa ay sheegeen in qudhaanjadu ay 100 jeer maalintii ah hadba wakhti aad u yaryara suurto ama dhakoosho, taasina ay kabto hurdo la'aanteeda aanay abuur ahaan seexan wakhti buuxa.